markale muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa isleegyada jibbaarada ama exponential equations. masalada halkan noogu qoran waxa way 1 lagu jibbaaray 5x plus 2 ayaa waxay kula mid tahay hal loo qaybiyey 243. haddaba sidaynu ku helnaa qiimaha xarafka oo ah muhiimadda isla egtan waa qiimaha x saan ku soo saara way aynu ka bilowna dhinaca bidixda. waxaynu odhanaa markaa 81 waxaynu qoranaa qaab jibbaara. iminka qaabkani u taallaa markaaynu u dhigno qaab jibbaara waxaynu odhanaynaa 3 lagu jibbaaray 4. haddaynu 4 jeer isku dhufano waxay noqonaysaa 81. 3 markaa isku dhufano waa 9. intaa haddaynu kusii dhufano 3 la isku dhuftay oo 9 ah 81 weyn. marka waa 3 lagu jibbaaray 4 oo lagu sii jibbaaray 5x plus 2 ayaa waxay noola mid tahay hal loo qaybiyey 243. 243 waxaynu u dhiganaa rogaalka jibbaarka. hadda waxa weeyaan lakab, marka waxaynu ka dhiganaa qaab jibbaara. hal loo qaybiyey 243 haddaynu qaab jibbaara u qorno waxay noqonaysaa 243 lagu jibbaaray minus 1. tusaale a to the power of minus 1 waxay noola mid tahay hal loo qaybiyey a lagu jibbaaray hal weliba aan idhaahno. marka a hal negative maaha, waan ka xumahay, waa positive. marka haddaad halna a ku jibbaarto waxba kama bedelay oo waa a. marka qaabkaasay kusoo laabanaysaa. haddii laakiin tiro ka duwan intaa tahay waynu ku jibbaarina. tusaalehaan hadday tahay a to the power of minus 2 waxay noola mid noqonaysaa hal loo qaybiyey a lagu jibbaaray 2. okay haddaba intan aynu u dhigno qaab jibbaara waa a aan idhahday 3 lagu jibbaaray 5 iyo waxaan isku dhufanaynaa 4 iyo waxaan isku dhufanaynaa 5 waa 20 x plus 8 ayaa waxay noola mid tahay 243 lagu jibbaaray minus 1. way haddaba 243 iyadana ma ka dhigi karnaa qaab jibbaara. waa 243 ma u dhigi karnaa iyadana qaab jibbaara? ha, iyadana waanu dhigi karnaa oo waa 3 lagu dhuftay 3 lagu sii dhuftay 3 kale. intaad isku dhufato 27 hadaad 3 ku dhufato waa 81 hadaad 3 ku dhufato waa 243. marka waa 3 la isku dhuftay 5 jeer 2 4 5. iyadana waxaynu ka dhiganaa marka 3 aanaan horta qaybta bidixda aynu qorno 3 lagu jibbaaray 20x plus 8 ayaa waxay kula mid tahay 3 lagu jibbaaray 5 lagu dhuftay minus 1. waayahay aynu dhinaca iska masaxno. dhinacana iska masaxno. ayaa waxay noola mid tahay 3 lagu jibbaaray 20x plus 8 oo inoola mid ah 3 lagu jibbaaray 5 iyo minus 1 haddaad isku dhufatana minus 5 weeyaan. waxay noola mid tahay minus 5. hooseyaashu imika haddii isku mid yihiin waynu iska dhaafi karnaa. dabeedna sarreeyaasha inoo soo haraya 20x plus 8 ayaa waxay noola mid tahay aan idhaahday minus 5. waayo waynu iskaga teganaa 3dan minus 5 sare inoo soo haraysa. marka haddaba aynu wareejino intan maadaama ayna intaasi wadanin wax xarafa
dabeedna waxay noola mid tahay 20x ayaa waxay noola mid tahay -5 minus 8. 20x marka waxay noola mid tahay labadan isku gee -13. dhinac kaste qiimaha wata xarafku ayaynoo qaybinaynaa. dabeedna x waxay noola mid tahay -13 loo qaybiyey 20. haddaba qiimahan oo xarafku leeyahay inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay si aynu u hubino waa inaynu ku bedelaa halkuu inoo yaala xarafku. aynu iska masaxno markaa meel aynu ku qorno way halku xarafku yaalo oo ah halkaas aynu ku bedelo intan loo xigta dhinaca midigta waayo waxay noqonaysaa markaa 81 lagu jibaaray 5 lagu dhuftay halka xarafku yaalaynu ku bedelanaa qiimahaas oo ah 13 loo qaybiyey 20 ayaa waxay loo geeyaa dhahde 2 ayaa waxay noola mid tahay 1 loo qaybiyey 243. waay intani wax xaraf iyadu awalba may wadanin markaynu intan ka soo shaqaynaa haddaba waay waxa weeyaan 81 lagu jibaaray 5 lagu dhuftay minus 13 loo qaybiyey 20 oo loo geeyey 2 waay waa 81 aan idhaahday 5 haddii aad ku dhufato 13 waxa weeyaan 65 waa 13 lagu dhuftay 5 haddii aad 3 ku dhufato minus bay noo raacsanayd weliba 5 haddaad 3 ku dhufato waa 15 hal baynu sidanaa dabeedna mar kale 1 iyo 5 iyo waxaan isku dhufanaa -1 minus way noo yaalo 5 iyo waxaan isku dhufanaa 1 waa 5 halkiina ku keenaa 60 minustana waa raacinaa marka waa 65 waayo waxaynu odhanaa marka minus 65 loo qaybiyey 20 loo geeyey 2 20 loo geeyey 2 waa 65 loo qaybiyey 20 65 loo qaybiyey 20 oo loo geeyey 2 aynu markaa mar kale intan oo jibaarka ah gooni uga soo shaqayno waa minus 65 loo qaybiyey 20 loo geeyey 2 halkaas aynu hal u qaybino dabeedna aynu raadino least common multiple-ka ay wadaagaan 20 iyo 1 marka waa 20 baad u qaybinaysaa 20 waa 1 baad ku dhufanaysaa minus 65 waa minus 65 mar kale 20 ayaad u qaybinaysaa 1 waa 20 uun labadaasaad ku dhufanaysaa waa 40 plus 40 baan odhanaa marka ayaa waxay noola mid tahay haddii aad 65 waa 65 haddaad ka jarto 40 halkan waxaan kala jaraynaa 5 iyo eberka dabeedna 5 baa inoo soo hadhaysaa 5 aynu qoranaa mar kale 6 iyo waxaan kala jaraynaa 4 2 inoo soo hadhaysaa minuskana maadaamay tiradu weyni wadatay waynu qaadanaynaa dabeedna waa minus 25 loo qaybiyey 20 intaas marka aynu ku bedelinaa intan oo dhan
waayo waa 81 lagu jibaaray minus 25 loo qaybiyey 20 ayaa waxay noola mid tahay may horta inoola mid tahay intaynaa soo qaadan oo qaybtan midigta xigta ah aynu horta intaan si fiican u dhammaystirno dabeedna halkaa markaynu taagannahay haddaynu intan isku qaybino waa minus 25 loo qaybiyey 20 waynu goonis ugu soo qaybino isla markaana waxay noo soo baxaysaa aynu soo saarno waxay noqonaysaa sidan waa 80 aan idhaahdo waa 25 loo qaybiyey 20 waxaynu raadinaynaa tiro intaynu ku dhufanno 20 ina siisa 25 ma jirto marka tirada ugu dhow baynu qaadanaa waa hal haddaad 20 ku dhufato waa 20 waynu kala jaraynaa eber iyo 5 markaad kala jarto waa 5 2 iyo 2 markaad kala jartona waa eber deedna dhibic ayaynu xaga ku buuxinaynaa bartana eber baynu ku daraynaa tiro intaad 20 ku dhufato ku siisa 50 ma jirto laakiin tiro u dhow baa jirta oo ah 40 afartana 2 ina siisa 2 haddaad 20 ku dhufato 40 weeyaan labadanaad kala jaraysaa eber eber ka jar waa 1 5na ka jar 4 waa 1 mar kale ma jirto tiro intaad 20 ku dhufato ina siiso 10 eber baynu ku buuxsanaynaa dabeedna 100 weeyaan tiro intaad 20 ku dhufato ku siisa 100 5 weeyaan dabeedna 100kii ayaad ka jaraysaa 100kan eber eber weeyaan marka waxaynu sameynaynaa intan ayaynu ku bedelaynaa halkay noo taalo intani waayahay waxa weeyaan 81 aan idhaahday lagu jibaaray minus 1.25 ayaa waxay noola mid tahay 1 loo qaybiyey 243 marka intan waynanu ku noqonaa qaabkii hore ee jibaarkii noogu qormaysay oo ahayd 3 lagu jibaaray 4 meeshaas waynagu yar tahay aynu dhinacan equalkan idhaahno 3 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 3 waa 81 okay marka haddaba aynu ku bedelo intaasi jibaarka ah ee ay noogu dhiganto oo intan ah intan aynu ku bedelo halkay noo taalo 81 waa 3 lagu jibaaray 4 jibaarkeedii horena ma iloobayno waynu kusii dhufanaynaa minus 1.25 waxay noola mid tahay 1 loo qaybiyey 243 marka intan aynu isku dhufanno waa 1.25 lagu dhuftay 4 4 iyo 5 baa isku dhufananaa waa 20 2aynu sidanaa 2 iyo waxaan isku dhufanaynaa 4 waa 8 iyo 2aynu sidanay 10 weeyaan eber ka dhigo weli 1 baynu sidanaa 4 iyo 1 baan isku dhufanaynaa waa 4 iyo 1kaynu sidanay waa 5 marka wixii dhibicda ka dambeeyey dhibicda halkaas aynu taallay wixii ka dambeeyey oo ah labada god waynu iskaga tegaynaa
marka waxa weeyaan laakiin hayso minus bax kale noo ahayd marka tanna minus weeyaan waa 3 lagu jibaaray minus 5 ayaa waxay noola mid tahay hal loo qaybiyey 243 haddii aad xasuusato markaynu ka shaqaynaynay rogaalka oo qaabka tirada jibaarkii ay iskugu rogi karto qaab tirada lakabka ayaan ka wadaa ay iskugu rogi karto qaab lakaba horeynu uga soo hadalay tusaalahaan haddii a to the power of minus 2 ay tahay waxay noqonaysaa hal loo qaybiyey a to the power of 2 intana waa same 3 to the power of minus 5 waxay noola mid tahay hal loo qaybiyey 3 to the power of 5 haddii aad 5 jeer isku dhufatana waa 243 marka marka intani waxay inoola mid tahay inta midigta xigta dabeedna hal loo qaybiyey 243 waxay noola mid tahay hal loo qaybiyey 243 okay halka waxaa ku cad qiimahaynu soo helay oo ah qiimahan inuu yahay qiimo sax ah